Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha keliya kasbaday oo si dhab ah u hantiyey laga soo bilaabo maalinkan xorriyadda qaadanay ilaa iyo hadeertan oo aan codkan duubayo Soomaaliya ma soo marin laakiin wuu ku guuldareystay kadibna mar labaad ayuu u tartamay wuuna ku guuldareystay mar saddexaad wuu ku guuldareystay ilaa markii afraad sanadkii 2003 السلام عليكم لويس دا سيلفا شخص كسو بلابي بالاشين تكبها مع سيد كبها إلا أو نغضي مدحوينها دل كميت أهدلالك أقول لقالها بدن عالمك موقال كان وحن كسو قادنينا تاريخ دميت كميت شخصيات كي كسوبنا قاعه سئي فقرية كدبنا جاري قمة سرئي تاجر لمن ماموسك إيو شرفتا شخصي كلا شي قويس فقيرة وأن وحبه هيسان هانتي أهان وحنا برن أقون أهان كونو سوكورين لشدد كليتا شقب شق كالي لباتنا kala ka daran noloshaas kadib noqday madaxweynaha wadanka Brazil magaciigu waa Umar Mohamed halkanina waa kanaalka Garwaaqsi daawade hadii aad isleedahay kanaalkan Garwaaqsi wax u baad ka faa'iidi xitaa hal kelmad baad ka faa'iidi ku soo biir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka ku soo dhawaada muuqaal aan uga hadlayno taariikh nololeedkii madaxweynaha hore Brazil Luiz Inácio da Silva 27 bishii Oktoobar sanadkii 1945 waxaa dhashay Luiz Inácio da Silva wuxuuna ku dhashay magaalo sabool ah oo ka tirsan magaalooyinka dhacdalka Brazil oo magaceedu yahay Guaranianes da Silva wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah oo aan waxba baran kana shaqeeya beeraha quudulyoomigana iskaga soo dhacsada beeraha oo ka kooban 8 caruur aabbaha qoyskan tirada badan ayaa go'aansaday inuu iskaga tago qoyskan kadibna nolol cusub oo la qaybsada gabar kale hooyada qoyskan ayaa iyadana ahayd qofta kaliya qoyskan u shaqeysa oo qoyska biisha da Silva wuxuu nasiib u yeeshay hooyo leh shakhsiyad xooggan go'aan iyo dulqaad adagna leh da Silva wuxuu dhigin jiray iskuul ilaa uu gaaray fasalka shanaad ee dugsiga hoose laakiin hooyadii da Silva ayaa awoodi weyday inay isku keento biilida qoyska iyo bixinta fiiga waxbarashada dilkeeda intaas kadib waxaa hakad galay waxbarashadii da Silva hakadkaas oo sababay in da Silva uu ku dhaco wadada Brazil ee faqiirka ah isagoo shaqo doon ah da Silva markii uu 10 jir ahaa wuxuu ka shaqeyn jiray iibinta ashyaada isagoo dhex bareegaya suuqa sidoo kale wuxuu ka shaqeyn jiray baalasheynta kabaha ama casiyada kabaasaad u taqaanidba arinka xusida mudan ayaa ah xilligan aan ka hadlayno dalka Brazil wuxuu ahaa dal fashilmay oo dhex dabaalanaya jahli iyo saboolnimo haddii aan si kale u dhahno dal dhex dabaalanayo waxbarasho la'aan iyo dhaqaale la'aan laakiin da Silva ayaa u istaagay in dalkiisa uu ka saaro xaaladda mugdiga ah uuna u saaro xaalad badha iyo barwaaqo heer uu da Silva iloobay danihiisa gaarka ah kuna mashquulay danaha guud ee dalkiisa wadanimadan xoogan oo shakhsigan leeyahay ayaa sababtay inuu kasbado qulubta iyo kalsoonida malaayiinta shacab ee Brazil isla kalsoonidan ayaa iyadana sababtay sanadkii 1980 in da Silva uu isu keeno urur badan oo Brazil ka jira iyo aqoon-yahano indheer garad ah oo uu hoos keena hal qaab siyaasadeed kadib uu asaasay xisbiga hanti wadaag ee ugu horeeyay taariikhda Brazil oo loogu magac daray Xisbul Ummaal xisbiga shaqaalaha da Silva oo ku sugnaa xaaladda faqriga aan ka soo sheekeynay dadaal adag kadib markii uu kasbaday kalsoonida malaayiinta shacab ayaa wuxuu go'aansaday inuu isu sharaxo madaxtinimada dalka Brazil sanadkii 1985 da Silva wuxuu u tartamay isuna sharaxay madaxtinimada dalka Brazil laakiin uu ku guuldareystay kadibna mar labaad ayuu u tartamay wuuna ku guuldareystay mar saddexaad wuu ku guuldareystay ilaa markii afraad sanadkii 2003 oo uu da Silva ku guuleystay madaxtinimada dalka Brazil isagoo helay 51 milyan oo cod ah markii uu da Silva xukunka qabanayay wadanka Brazil wuxuu ku sugnaa burbur dhaqaale Brazil waxaa lagu lahaa ku dhawaad 175 bilyan oo deen shisheeye ah da Silva si uu u fuliyo dib u habeyntan uu rabo wuxuu ku qasbanaaday in sanduuqa lacagta adduunka IMF uu ka soo deensada lacag dhan 36 bilyan oo dollar ah tirada deenta Brazil ay noqoto 211 bilyan oo dollar ah qorshihii badbaadinta iyo samata bixinta Brazil ee uu dejiyay Luiz Inácio da Silva qorshaha koobaad damaanad qaadid uu damaanad qaaday dhammaan maalqabeennada la cabsanayay maalkooda iyo danahooda gaarka ah wuxuuna u damaanad qaaday in aynan wax dhibaato ah kala kulmi doonin qorshayaashan uu ku dhaqaaqay da Silva bilcagsi wuxuu u ballan qaaday in ay wax badan ka faa'iidi doonaan qorshayaashan qorshaha labaad mamnuucidda dhammaan howlaha iyo mashaariicda loo isticmaalo qasnada dawladda qorshaha saddexaad bilaabida qorshe ah hubinta imaashaha lacag badan oo qasnada dawladda imaanaysa
qorshaha afraad kor u qaadida canshuurta laga rabo qof kasta oo ka mid ah ganacsatada iyo milkiilayaasha hantida badan leh. qorshaha da Silva ayaa u muuqday mid shaqayn kara oo hirgeli kara. 8 sano oo ay dadka Brazil ku shaqaynayaan qorshayaashan uu dejiyay da Silva waxay ku guuleysteen in 44 milyan dad Brazil ah ay ka saaraan faqriga ilaa heer ay dowladda Brazil sanadkii 2005 ay dib u soo celisay deymihii sanduuqa lacagta adduunka. Brazil waxay leedahay dhul beereed aad u ballaaran iyo kheyraad dabiici ah. kheyraadkaasi waa hanti wax waliba bedeli karta, laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay in dalka Brazil uusan lahayn awood dhaqaale iyo mid dadnimo oo ku filan si uu u soo saaro una iibiyo hantidaas dabiiciga ah. Da Silva ayaa ku dhaqaaqay qorshe iyo xeelad caqliyeysan oo ah suulinta dhammaan wax waliba oo ka hor istaagsan soo saarista kheyraadkaas dabiiciga ah. waxaa kale oo uu da Silva sameeyey dhiirigelin ballaaran oo aan hore loo arag oo uu ku dhiirigelinayo dadkiisa. soo saarista kheyraadkaas kadib waxaa la dhoofiyey mawaadka ceyriinka ah ee laga soo saaray dhulka. dowladda Brazil dhoofintaasi waxay ka faa'iiday hanti aad u tiro badan. hantidaasina waxay ku taageertay ku garab istaagtay warshada teknoloji ah sida samaynta baabuurada, samaynta diyaaradaha iyo teknolojiyada kale. dadaalkaas dheer kadib Brazil waxay noqotay dalka ugu dhaqaalaha badan Koonfurta Ameerika iyo dalka 7aad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. arrinka caalamka oo dhan wada ogyahay ayaa ah in FIFA World Cup 2014 ciyaarta koobka adduunka 2014 lagu qabtay dalka Brazil, taas oo adduunka oo dhan uu ka marakacayo. dhammaan guulahaasi waxaa ka shaqeeyay shakhsigan aan muuqaalkan uga hadlayno, Luiz Inácio da Silva. da Silva wuxuu xukunka hayay 2 xilli ilaa 2011, laakiin da Silva wuxuu iskiisa uga tagay inuu mar saddexaad isu sharaxo madaxtinimada Brazil isagoo raacaya dastuurka iyo sharciga u degan dalka Brazil. laakiin shacabka Brazil ayaa ku soo baxay malaayiin dad ah iyagoo dalbanaya in dastuurka wax laga bedelo oo uu mar kale da Silva isa soo sharaxo. balse da Silva wuxuu doorbiday inuu tusaale u noqdo jiilasha dambe oo uusan ku dhigin kuna madax adeegin xukunka. wuxuu doorbiday inuu ixtiraamo dastuurka iyo muddada xilka madaxweyne ee ku qeexan dastuurkaas. da Silva khudbadiisii ugu dambeysay wuxuu ku sheegay hadal loo arkay inuu cashri muhiim ah u yahay dhammaan dimuqraadiyadda adduunka. wuxuu yidhi, waxaan u dagaalamayay in ka badan 20 sano, waxaana u galay xabsiga si aan madaxda uga hor istaagay inay xukunka sii hayaan wax ka badan xilliga sharciga ah ee loo ogol yahay inay qabtaan. sideen ugu ogolaan karaa nafsadeedii inaan sidaas sameeyo hadda? diidmadaas kadib shacabka Brazil ayaa isugu soo baxay banaanbaxyo waaweyn si ay u sagootiyaan da Silva, iyagoo ilmeynaya oo muujinaya da Silva siday u jecel yihiin una qadarinayaan isaga iyo waxa uu u qabtay Brazil. laakiin waxaa la yaab iyo ama kaag leh, dimuqraadiyad iyo madax banaanida garsoorka ee u asaasay da Silva ayaa da Silva ku eedeeyay musuqmaasuq iyo luusashada hantida dadweynaha. inkastoo uu beeniyey dhammaan eedeynta loo soo jeediyey, uuna u arkay inay yihiin shirqool ka dhan ah mucaaradkiisa iyo cadowgiisa oo aan rabin in da Silva mar kale uu ka dhex muuqdo saaxada siyaasadda. iyadoo ay jiraan waxaasoo dhan, waxba iskama bedelin jaceylkii reer Brazil oo ay jeclaayeen madaxweyne Luiz da Silva. da Silva waxaa loogu naaneysay ninkii sameeyey baraasiisha casriga ah. da Silva wuxuu caalamka oo dhan u caddeeyey in awoodda dhabta ah aynan ahayn awoodda lacagta, balse ay tahay awoodda ka soo baxda dadka iyo shacabka. da Silva dhammaan hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta wuxuu u caddeeyey in haddii siyaasi uu galo qalbiga iyo damiirka dadka, cidiba inay ka saari karin qulubtaas aan ka ahayn isla shacabkaasi uun. daabade xoogaar aan u soo laabana dalkanaba Soomaaliya. madaxweyne hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha keliya kasbaday oo si dhab ah u hantiyey qulubta caamadii culimada Soomaaliyeed. laga soo bilaabo maalinkan xorriyadda qaadanay ilaa iyo hadeertan oo aan codkan duubayo, Soomaaliya ma soo marin madaxweyne ka shacbiyad badan, ka taageero badan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. farmaajo wuxuu ku nool yahay qulubta ummadda Soomaaliyeed. wax waliba la keenana cidiba kama saari karto qulubtaasi ilaa isla ummadaasi uun. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.